kooxda Liverpool oo la soo wareegtay ciyaaryahanka cusub ee ugu da'da yar dunida ciyaaryahankaasi oo da'diisu tahay 37 sano magaciisana la yiraahdo Johnson Jarrett ciyaaryahankaasi oo wacad ku maray inuu kooxda gaarsiinayo horumaro fara badan ee ugu horeeyaan inuu ka dhigi doono kooxda ugu horeysa horyaalka dalka Talyaaniga iyo inuu wacad ku maray inay qaadaan koobka Champions League ciyaaryahankaasi oo sheegay waxyaabo badan iyo barnaamijyo kale ka hadlay asiga ayaana ka bogan doontaan waxyaabo badan oo idin sheegi doono ku faraxsanahay inaan ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaan rajeynayaa inaan u qaado horyaalka Talyaaniga iyo Champions League horyaalka Talyaaniga iyo Champions League waxaan ahay ciyaaryahanka ugu da'da yar adduunka magaciina waa John waxaan rajeynayaa inaan Liverpool u qaado horyaalka Talyaaniga iyo horyaalka Ingiriiska waxaan jeclahay qaab ciyaareedka ciyaaryahankii hore ee boqolka sano ciyaaraha u fadhiistay Stephen Gerrard waxaan rajeynayaa inaan guul weyn oo muhiim ah la gaaro kooxda kubadda cagta Liverpool iyo macalinkeyga 10 sano na soo dhibnay Jose Mourinho ayaan u faraxsanahay inaan ku soo biiro kooxda kubadda cagta Liverpool waxaan rajeynayaa inaan qadka dhexda qaybsado ciyaaryahan Henderson iyo Lucas Leiva iyo ciyaaryahanka kale aan aad ku jeclahay 20 sano aan ka weynahay iga yar 20 sano iga weyn Philippe Coutinho waxaan rajeynayaa inaan oo Liverpool guul muhiim ah la gaaro macallin aad baan u jeclahay waan ku faraxsanahay inaan koo shaqeeyo macallinkeyga muddada 10 sano ee la joogay kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jose Mourinho هذا أنا سنتي ليفربول وحلقة قندراس جارة صدق كل سنة